Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaad channelkeena KMB. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay habdhaqanadii wanaagsanaa ee Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo noo leh faa'iidooyin fara badan taasoo xildheerayaasha caafimaadku ogaadeen inuu caafimaadka qofka u wanaagsan yahay. Haddaba kusoo dhawaad muuqaalka. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kici jiray aroortii isagoo u kacaya salaada subax. Khabiirada caafimaadkuna waxay xaqiijiyeen aroortii oo xilli hore la toosaa inay kordhiso wax soo saarka iyo firfircoonaanta qofka. Iyadoo taasi jirto, haddana dadka xilliyada hore toosa way ka walwalyar yihiin kuwa xilliga dambe toosa. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu cuni jiray wax yar. Khabiirada caafimaadkuna maanta waxay xaqiijiyeen cunista cuntada oo aad yarayso inay ka hortagto xanuuno badan. Waxay qaadataa 20 daqiiqo in caloosheenu u sheegto maskaxdeena inay buuxdo. Inaad tartiib wax u cunto waxay hagaajisaa dheefshiidka. Sidaasi daraaddeed ayuu saynisku maanta ugu baraarujiyaa inay aayar wax cunaan dadku. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu mar walba noo sheegi jiray in si qoys ahaan wax loo wada cuno. Maanta culimada caafimaadka waxay xaqiijiyeen in wadajir cunto lagu wada cuno ay yarayso stresska ama diiqada. Cabista biyaha adigoo kabasho walba u dhaxaysiinaya 3 mar oo neefsasho ah. Maanta culimada caafimaadka waxay xaqiijiyeen 1 mar oo aad biyaha wada cabtaa inay keento madax xanuun, dawakhaad iyo xanuuno kale. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuu jeclaa rumaanka. Culimada caafimaadkuna maanta waxay xaqiijiyeen rumaanku inuu yahay khudaarta ugu wanaagsan adduunka. Cunista timirtu waa mid caan ka ah dhanka dhulalka Carbeed iyo weliba saxarayaasha. Hase ahaatee, timirtu waxay dejisaa heerka sonkorta jidhka waxayna dheelitirtaa jidhka. Culimada caafimaadku waxay xaqiijiyeen in cunista timirtu ay sare u qaadi karaan hormoonka ama dheecaanka loo yaqaano oxytocin, isla markaana ay dedejin karto foosha dumarka. Nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay inaan soonno bisha barakaysan ee Ramadaan. Maantana culimada caafimaadku waxay xaqiijiyeen in soonka bisha Ramadaan uu caafimaad u yahay, wuxuuna la dagaalamaa unugyada keena kansarka. Salaada inkastoo ay diinteenu meel weyn inaga istaajisay ayna tahay tiirka labaad ee 5 tiir ee Islaamka, iyadoo waajibaadkaas weyn diintu naga saartay dhanka salaada, haddana culimada caafimaadku waxay xaqiijiyeen inay salaadu tahay nooc jimicsi ah ama jimicsiga ka mid ah. Jimicsiguna uu u fiican yahay badqabka wadnaha, maskaxda iyo dhammaanba jidhkeena. Haddaba daawadayaal, muhiimadda muuqaalkeena wuxuu yahay in aan kaliya idiin sheegno in wax walba ay diintu kaa xarimtay ama ay ka mamnuucday uu yahay wax adiga caafimaadkaaga u daran. Wax walba ay kuu fasaxday ay kugu waajibisay ama sunno kaaga dhigtayna waa wax adiga kugu wanaagsan.